maxamed siciid cateeye oo gacan ku dhiigla ahaayo mar hore nin ku dilay Hargeysa oo dil lagu xukumay oo Madheere la geeyay oo Ilaahay ka soo furtay oo walaalkii lagu furtay oo laguna dilay meesha la yiraahdo Qoorlugud waxa weeyaan ninkaasaan ka hadlaynaa war bal dadka Soomaaliland oo maqal weeyaan inankayagii maxamuud xasan ee Qoorlugud lagu dilay saddex qof baa dilay oo naagi ku jirto waxa weeyaan laba habeen may xidhnayn markaanu anagii habar jecel heshiinay laba habeen may xidhnayn inankayagii ninka lagu furtay ee Ilaahay samada ka saamaxay waxa maanta lagu haystaa ilaa xilliga uu xidhan yahay waxa weeyaan sharci baan ku fulinayaa weeyi sharcigu ma ku anaguna qabtaa kuwan la sii daayay maanu qaban Muuse Biixow ma tihid maalintii saraakiishii SNM ahayd ee dadka wixii aan isaaqayn la leeynayay ma tihide madaxweynaad maanta noqotay dadkii ku doortay baanu Axmed Ismaaciil Samatar baa ku ololeynayay annaguna isagaanu ku xidhnay waxa weeyaan raggii wadar ku doortay baanu maanta ma waxaad noogu abaal gudaysaa inaad inankayaguna halkaa laba nin jeelka naga dhintaan nin wala naga dilay ka kalena ma inuu jeelka ku dhinto oo xaq darra ugu dhinto ayaa doonaysaa hoos soo dhaadhac madaxweynaad tahay malaha waxaad isku haysataa sargaal SNM madaxweynaad tahay kitaab baad gacanta saartay Ilaahay baa ka dambeeyo waa lagu xisaabin waxa weeyaan 4 cisho ayaad meeshan joogaysaa war cadaalad darrada ka daa naga daa cadaalad darrada noo soo daa maxamed siciid cateeye noo soo daa ereygayaga markaad maqashana afka ha taagine hoos u dhigo waxaanu ku leenahay dhaga u yeelo warqadii siideynta inaka ee heshiiska labada reer hay ku heshiiyeen wataa aswaati ay ku heshiiyeen siideyntahay wax laga soo qaadayna ma jirto taasina waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha qoray wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin baa qoray dee uu iska qoray inuu sii daayo ugu mutalagelin heshiisyadaasi labada warqadood ee madaxweynuhu og yahay ee wasiirka arrimaha guduhu og yahay ee garsoorku og yahay ee ciidanku og yahay ee maxkamaddu og tahay ee waxa la wax hay'adii cadaaladda ka maqan in halka jirin ee heshiiska iyo ogeysiinta la qabo ninka walaalkii loogu aaray isagoo sargaalka walaalkii loogu aaray isagoo oo dil u taagan oo Madheere la geeyay oo saacad ka harsan tahay 2 saacadood ka harsan yahay ayaa waxa loogu aaray in adeerkii Qoorlugud lagu dilay ninkaasoo dhex joogay reerka dilay dhex joogay haddii Ilaahay furtay waa cadaalad darro in la haysto oo dee anaa xukunkiina haya anaa taladiina haya wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka maxkamadaha dhammaan waxaan u sheegaynaa siiba madaxweynaha dalka haddii ninkaasi si cadaalada lagu soo dayn waayo wixii ka dhaca waxa ka mas'uula dawladda ka mas'uula madaxweynaha ka mas'uula arrimaha gudaha ka mas'uula dawladda ka mas'uula waa Soomaaliland inay maqla waxa weeye su'aal waxaan weydiinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baan weydiinayaa laba su'aalood waxa weeye sharcigu ma laba mise waa mid wadanka laga dhaqmaa talabaadna waxa weeye dadka Soomaaliland miyay kala sareeyaan oo way kala fadil badan yihiin maxaa haddii ayna taasi jirin labada inuu iga jawaabaan doonay horta madaxweynuhu waxa weeye waxa igu xigtaa haddayna jirin taasoo laba sharci wadanku lahayn ama ummaddu ayna kala sareyn waxa weeye maxaa loo haystaa ninka dilay ee walaalkii isaga loogu aaray maanta maxaa inta soo gaarsiin loogu haystaa ee wasiirka arrimaha guduhu warqadiisii uu qoray lahayo ee kii tolku labada tol ku heshiiyeen lahayo waxa ay ku haysato dawladda Soomaaliland baa ka jawaabaysa waxa weeye dee ha ii sheegto sharciga labaan ku kala dhaqanaa laba sharci baa jiro wadanku ku dhaqmaa hay tiraado madaxweynaha taa ka doonaya talabaad ee kale waxaan ka doonayaa
ummadda way ka fadil badan tahay oo way ka sarreysaa ha yidhaahtaana haddayna ka sarrayn kaygiina waa la haystaa kii kalena waa la sii daayay maxay ku dhacday dee waxa weeye war waddanku ama waddan aan wada leenahay ha noqdo oo sharcigu sharci aan wada leenahay ha noqdo ama dhanba hantida waxa uu dhashaa alla arko annagu maanta laga bilaabo waxa weeye mar dambe ma sugayna waxa weeye ninka si degdeg ah hadii la noogu soo dayn waayo wixii ka dhaca annagu mas'uuliyadeeda ma lihina dawladda leh ninkii loogu aaray weynigii dilay arrinkii waa la galay waxa lagu dhameeyay nin labadii nin buu ka dhigtay saasa lagu dhameeyay waa ninkii habar jeclo dadkoogii ya waan isaragnay way dhamaatay baabara bakoor iyo habar jeclo way ka heshiisay dawladdani maxay u jeedaa ninkan maxay ku haysataa xaqayaga loo haystaa markaa muxuu yahay ee imika leeyahay 4 sanadood idaaba la xidhi war wallaahi waa billahi inay socodeen waddanka amba cadaalad baa lagu wada noolaan oo lagu wada amba runta la isku sheegay Muuse Biixi waxa weeyso madaxweynihii waddanka ma isaga ugu sareeyay annagu wasiirkan arrimaha gudaheena naabinaya ee marna waan sii deynaya mar war waxaan uga soconaysay qaranka wuxuu qoray waraaqda aan gacanta ku hayo waraaqda xeeraryaha qaranka ayaa soo qoray waxa ay ku socotaa madaxweynaha calaadul toos madaxweynaha ugu socotaa xeeraryaha qaranku wuxuu yiri madaxweyne mar haddii la heshiiyay qodobada noocaas waa laga heshiiyay dilkaana waa laga heshiiyay waxaad u fidin ninkaas codsi xeeraarintu soo qortay hal la cafiyo baytan xeeraarintu madaxweynuhu waan aqbalay buu yiri dalka lama madaxweyne kuma ogin marka waxa dhexda u jooga ilaa hadda ma garanayno ilaa hadda ma aan garan waxa dhexda u jooga waxbaan dilaynaa ma lihin waan dagaalamaynaa ma lihin waan macaaradaynaa ma lihin laakiin waxaan ku doonaynaa waddo sharci ayaa wax ku doonaynaa kuwii kale waa la sii daayay isagana gacanta laga qaado ha la soo daayo nabadgelyada ku jirta wada noolaanshaha dadka ku jira waana nuuci aan ku heshiinay anagoo 14 oday ayaa ku heshiinay qoraalkaas 7 dhinaca iyo 7 dhinaca inay hawsha ay dhamaato dawladdu way naga aqbasho marka ma dawladda ku hoos dhisan miyaa jirta oo naga qarsoon anagoo hoos miyaa jirta waxaan aad uga codsanaynaa madaxweynaha qaranka inuu ninka cafiyo soo daayo si dadkiisuna u kala nabad galaan maxamed Saciid Caateeye uu dhagaroobay walaalkii oo Soomaaliland uu ku dhagaroobay xerada birmadka ee mataqaana gacantu kaga dhacday ma ordina uu isdhiibay dawladdu way qabatay maxkamadda la geeyay maxaad codsanaysaa baa la wala xukumay hal la itilabuu waxa weey gacan ku dhigla noqday walaalkii baan ku dhagaroobay hal la idilfi dil baa lagu xukumay dabadeed waa la qaado waxa la geeyay ma dheeraa la geeyay isaga intii uu ku jirayba isaga oo saacada ka hadhan yahay dilkiisii ayaa ina adeerkii rumaad oo ma taqaanaa ina Maxamuud Xasana ayuu ninkii wiilka laga dilay inamadiisii u diray oo ma taqaanaa halkaas lagu toogtay sidaasuu ninka ay u firmaatoobay kiina halkiiba ku dhintay waxaan nidhi labadii reer ee ma taqaanaa labadan ninka kala dhinteen waan isku imanay bari iyo galbeed baan ka Hargeysa isku imanay waxaan iswarsanay war laba dhimatay godob horinay nooba dhaxayni war waxa weeyaan ku dambiiyuna dhibanini kuwa dambiyeena dhibanini han heshiinay waxaan nidhi innaga wixii idinka xidhanaa laydii sii daayo kuwa la daba socda ee ma taqaanaa dhagaroobay nabad galaan annagana kaayaga la noo soo daayay heshiis baan sidaa ku kala galnay heshiiskii waxaan ula tagnay wasiirka arrimaha gudaha uu naga aqbalay warqad buu qoray wuxuu yidhi hawsha sidaa ha ku dhammaato uu qoray mataqaanaa warqad buu noo qoray warqadii markaa uu noo qoray maxkamadan la tagnay waxa weeye waxaan idhi ninkaasi ninkii loo dilay waa ka dhintay ilaahay baa furtay
هلا نو سو داية الدولة ديدي ولي نينكي واحد أيه هل هو كحيلة ما قرنين وعوي وأنا مدحوينا هيك مصبيحي عبدو شاقينا موسى هذيك هذا الحكومة وعوي نكاينا ميشو كحيلة ما قرنين وحن كعود سرينا ما دانا هيدا كي سومالي لان نو سو دايو إني كلا نو سو دايو sidoo ugu dhaqsadan loo noogu soo daay godobtii labada reer sidaa ay ku dhamaato